Soo dhawaada, aniga magacaygu waa Axmed. Waxaan ahay dhakhtar. Tani waa walaashay. Baryahan dambe walaashay waxa ay u dhaqantaa si la yaab leh. Aniga ma aha qofka kaliya ee arkay, xataa hooyaday iyo aabbahay way arkeen. Waxaan kaga sheekeyn doonaa waxa ay samayso mar walba ee ila dhageysta sheekadeeda. Walaashay mar walba waxa ay soo istaagtaa musqusha agteeda. Marka ay cabaar taagnaato ayaa ay haddana waxa ay ku boodboodaa musqusha iyo inta u dhaxayso bannaanka. Waxay u qososhaa si la yaab leh, haddana waxa ay wadataa boonbale mana sii dayso boonbalaheedaas. Markii la dhaho maxaa ku daaray ayay waxa ay dhahdaa waxba ima hayo, balse indhaheeda waxa ay u muuqdaan kuwo gudguduudan. Qosolkeedana mar walba kama faaraqayo. Maalin maalmaha ka mid ah hooyaday cuntada ayay diyaarisay. Waxa ay soo dhigtay miiska. Cuntada waa ay nooga soo hormartay, kulligeedna dhulka ayay ku daadisay. Way qososhay waxayna aaday qolkeeda ayadoo aamusan. Hooyaday ayaa aniga ii imaaday waxa ayna igu dhahday waxaad tahay dhakhtar ee gabadhan daawee ama u keen sheekh daaweeyo. Haddii kale aad awoodin waxaad geysaa dhakhtar kale oo cilmi nafsi ah. Aabahay ayaa dhahay waa fikir fiican, waxaad geysaa dhakhtarka. Aniga dhankeeda ayaan soo aaday. Markii aan u imaaday ayaa waxaan ku dhahay isoo raac aniga. Ilamay hadleen, boonbalihii ayay iska tuurtay. Kadib way soo raacday ayadoo aamusan. Waxaan la yaabay sida fudud ay igu soo raacday, balse marka aan dhexda soo maraynay ayaa ayada waxay diiday inay la hadasho, mayna i fiirinaynin ilaa aan ka soo gaarnay isbitaalkii. Markii aan u imaanay ayaan la yeelanay ballan dhakhtarkii. Waxay nagu dhahday waa inaad sugtaan, waxaa ku jira qof kale oo bukaan ah. Markii cabaar aan fadhinay ayaa naloo sheegay inay ka soo baxday oo aan aniga geli karno. Markii aan galnay dhakhtarka su'aal walba uu weydiiyo waxay igu jawaabaysay qosol. Dhakhtarkii marka uu yaabay ayaa waxa uu dhahay bannaanka adiga nooga bax. Aniga ayada ayaa meel gooni ku wada hadli doono. Bannaanka ayaan soo fadhiistay. Markii aan cabaar ka fadhiyay bannaanka ayaa haddana dhakhtarkii ii wacay. Waxaan tagnay meesha ayada ka yara fog. Kadib waxa uu dhahay walaashaa waxaa haya cudur nafsi ah, wuxuuna ku dhacay cudurkaas mar hore. Wuxuu ii sheegay inay u baahan tahay inuu cabaar daaweeyo oo naloo soo celin doono. Wuxuu ii dhiibay daawo wuxuuna dhahay daawadan sii, waxa ay u noqon doontaa dajiye. Waan soo baxnay anaga waxaana ka soo aadnay guriga dhankiisa. Markii aan keenay guriga qolkeeda ayay iska gashay. Aniga waxaan soo aaday dhanka gaarigayga si aan ugu keeno sheekh saare quraanka. Markaan cabaar soo socday ayaan u imaaday sheekhii. Waxa uu ii soo jeediyay inuu gurigayga imaan doono si uu u saaro quraanka ayada. Waa uuna i soo raacay. Sheekhii guriga ayaan keenay. Markii aan guriga keenay ayaan soo aadiyay qolka dhankeeda. Kadib waxa ay ku bilaabay inuu saaro quraankii. Mar walba uu quraanka saaro aad ayay u qoslaysay. Waa ayna kasii daraysay qosolkeedii. Waxa uu dhahay gabadhan waxa ku jirta awood kale. Mana moodaynin inay saas tahay, balse waxaad ii keentaa koob biyo ah. Biyaha ayaa anfici doona markaani. Anigu waan soo baxay si aan ugu adeeco sheekha oona ugu keeno koob biyo ah. Waxaan u imaaday fadhiga ayagoo fadhiyaan hooyaday iyo aabbahay. Waa ayna murugsanaayeen. Waxaana ku dhahay habaqina sheekha ayaa joogo, quraanka ayuuna saarayaa. Kadib way aamustay. Waxaan dhahay soo ma aragtiin. Way aamustay waana la daaweeyay. Kadib waxaan soo aadnay dhanka sheekha agtiisa annagoo faraxsan oona ordayna. Markii aan soo gaarnay sheekha agtiisa ayaa waxaan aragnay waxaan aad uga naxnay. Sheekhii asagoo dhintay ayuu dhulka yaallay, indhihiisana way furnaayeen. Walaashay waxa ay taagneyd dhanka kale waxa ayna wadatay boonbalaheedii ayadoo qoslayso. Mana u ekeen inay wax qalad samaysay hataa. Annaga waan baqnay waana ooynay. Kadib sheekhii ayaan soo aadnay waxaan fiirinay inuu nool yahay iyo in kale. Laakiin sheekhi muu dhimanin ee wuu noolaa. Waxaan oola soo dhaqsaday dhanka isbitaalka. Kadib markii raajada la saaray ayaa la ogaaday inuu maskaxda dhiig ku furay. Waana in dhaqso si ah loogu sameeyaa qalliin. Qalliinkii ayaa la sameeyay wuuna ku guuleysteen qalliinkii. Waxaa la dhahay saacado kadib ayuu soo naaxi doonaa. Aniga waan ag fadhiyay ilaa uu ka soo naaxayo. Markii uu soo naaxay ayaan soo ag imaaday waxaana weydiiyay waxa ku dhacay. Waxa uu ii sheegay in walaashay ay ku jirta awood aad u badan, kumana dhicin weligiis waxa maanta ku dhacay oo kale. Waxa uu iiga sheekeeyay sheekadiisa wuxuuna i dhahay markii aad naga tagtay anigoo quraan ku aqrinaya ayaa walaasha hal mar afkeeda ka soo bixisay awood aad u badan. Kadib dhulka ayaan ku dhacay waana suuxay. Waxaan u sheegay inuu fiican yahay hadda uuna nabad qabo. Waxa u dhimo wax yar wuuna fiicnaan doonaa. Waxaana u sheegay inuu waxba ka baqin waayo waxa uu ku jiraa ammaan. Waana ka raaligeliyay wixii dhacay. Kadib waxaan wacay aabbahay waxaana weydiiyay xaalka walaashay. Waxa uu i dhahay sida aad ooga tagtay ayay weli tahay, waana baqayaa. Waxaan ku dhahay ha u dhowaanin agteeda. Waxaa laga yaabaa in ay ku disho. Aniga caawa waxaan leeyahay shaqo. Waxaan ii imaan doonaa beri si aan u fiiriyo xaalkeeda.
Habeenkii dhan waxaan ka fikirayay walaashay xaalkeeda, waxaana raadinayay xal ay ku biskoon doonto. Marna waan u duceynayay, anigoo ag fadhiya ninka kale oo bukaanka ahaa ee ay waxyeelaysay. Subaxdii markii la gaaray ayaan u soo dhaqsaday guriga dhankiisa. Markii aan guriga soo gaaray ayaa waxaan arkay walaashay oo fadhisa fadhiga, waxayna ku ciyaaraysay boonbalaheedii. Waxaan weydiiyey see tahay adiga, waxay iigu jawaabtay qosol bes ah. Anigu markii aan yaabay ayaa haddana waxaan ka baqay haddii aan la sii hadlo inay igu waxyeelayso. Kadib waan ka soo tagay, waxaana raadiyey hooyaday iyo aabbahay. Meel walbaan ka dayay waan ka waayay. Waxaan u imaaday ayada, waxaana ku dhahay soo la yaab ma aha, xilligaa may jiifi jirin hooyo iyo aabbo. Jawaabteeda waa iska aqaantaan ilaa waxa ii bilowday qosolkii sidii hore oo kale. Laakiin markaan aad ayay u qoslaysay, wuuna ka duwanaa qosolkeedii kii hore. Kadib waxaan soo galay qolkoodii, waxaan arkay hooyaday iyo aabbahay oo dhulka yaallo, kuwaas oo lagu jajabiyey dallado iyo saxamo. Waa ayna dhulka ay yaaleen ayaga oo xaaladooda aad u xun tahay. Waan soo dul istaagay, waan fiiriyey mid walbo. Kadib waxaan bilaabay inaan qayliyo. Waxaan ku dhahay maxaad ku samaysay hooyo? Aad ayay u qosashay, waxa ayna ku dartay qosolkeedii in badan. Si ay u qoslaysay anigana aan dhulka u joogay ayaa waxaan u wacay ambalaastii. Ambalaastii dhaqso ayay guriga soo gaartay. Laakiin nasiib xumo hooyaday iyo aabbahay waa ay dhinteen. Waxaan qabtay janaasada keligeyga, waayo walaashay waxa ay ahayd mid xanuunsan, mayna ogeyn waxa ay samaysay ayada. Guriga ayaan imaaday, waxaana nala soo daristay xaalad aad u murug badan. Waxaan ka murgaa walaashayda, mise waxaan ka murgaa in ay ayada gacanteeda ku dishay. Anigoo xanaaqsan ayaan aaday dhankeeda. Markii aan soo gaaray qolkeeda ayaan isayn waayay. Waxaan ku bilaabay inaan ku qayliyo. Waxaan dhahay maxaad u dishay hooyaday iyo aabbahay? Hadda ma waxaa rabtaa inaad aniga i disho? Waa kanaan waan ku hortaaganahay, kaale i dil ayaan ku dhahay. Way istaagtay, waxay bilowday qosolkeedii, balse markaan waxay u jihaysatay dhanka guriga kale. Way baxday, aniga meesha ayaan taagnaa. Waxaan ka fikirayay xaaladeeda iyo hooyaday iyo aabbahay. Waxaan is lahaa qofkaan ku jira waxa uu kaa rabaa. Mana ku fikiraynin in ay bixi doonto, balse markii dambe ayaan arkay ayada oo baxday. Waxa ayna ka baxday guriga albaabkiisa weynaa. Kadib ayaan arkay ayadoo goyn rabta waddada. Waan ka soo daba cararay ilaa aan ka soo arkay ayadoo taagan waddada weyn. Kadib waxaan dhahay ha goynin waddada, kaalay. Waan u wacay, balse isla markiiba ayadoo ii soo joogsan waxaa barbaray gaari kale. Aniga aad ayaan u qayliyey, waxaan u soo cararay dhankeeda. Waxaan saaray dhabteeda, laakiin waa ay neefsanaysay. Waxaan noogu wacay ambalaasta, waxa ay soo gaarsay ambalaasta si dhaqso ah. Balse intaan dhexda ku jirnay ayay dhimatay. Haa, way dhimatay walaashay, waxaana soo haray adduunka aniga oo keli ah, waxaana nahay reer la'aan. Waxaan geliyey qolka meydadka. Kadib waxaan soo aaday dhanka kalkaalisada saaxiibtay ahayd. Meesha ayaan fadhiistay, waxaana bilaabay inaan aad u ooyo. Waxay igu dhahday maxaad la oonaysaa, balse waxaan u sheegay inaan aniga ahay reer la'aan, walaashay ay tahay midda gacanteeda isku dishay. Kadibna waxa ay dishay labadeeda waalid. Ayada waxa ay dhahday adduunkan qof aan ka tegin ma laha, balse waxaad isku daydaa waxaan ka dambeeyey. Waayo waxaa jira dadyaalo badan oo sixir adeegsada si ay ugu dilaan dadka kale. Waxay i weydiisay inay hooyaday iyo aabbahay lahaayeen cadow. Waxaan u sheegay hooyaday aabbahay inay shaqada waa hore ka fadhiisteen, ayna lahayn wax cadow ah. Waxaan ku cusubnahay meeshaan, waxaan joognaa 6 sano oo keli ah. Balse sheekada hadda ayay ku tahay. Waxaad isku daydaa inaad la socotaan qaybta labaad, waayo waxaa soo socda wax walba oo muhiim ah.